waxaan rabaa inaan ilaalo madaxweyne xasanow waxaad shalay diidaneed maanta cid kaa aqbali mayso dowladnimaduna wejigaa ma yeelanayso shirkaana waxaad ogaataa waxaa ka soo bixi doona inay tahay gogol Soomaaliyeed ay ku tashanayso haddii madaxweynuhu uu si aada u fakarayo wuu iman lahaa intuu yimaado odhan lahaa wadhooya meesha taladii waan dhigay xageen talada haddaan idinla bilaabaya bacdi waxaan aada ugu faraxsanahay kulankan qiimaha iyo qadarinta leh oo maanta ka dhacaya magaalada Kismaayo ahna gogol wada tashi oo sida ay xidhiidhiyayaasha ama guddiga farsamadu sheegayeen ka turjumaya tabeelahan iyo wixii kale lagu dari karayo soo dhaweynka bacdi waxaan rabaa marka hore inaan ka cudur daarano qiyaaska waxaa laga yaabaa dadku inayna helin mid walba munaasabka wixii uu ahaa iyo waxa uu filayay ama ha noqoto deegaan ama ha noqoto siyaalo badan markaa taasna macdiratan gurigiinii baad joogtaan qofna qof marti uma aha kistaadiyo Kismaayo haddaad Kismaayo kaafisaa la yidhi markaa taas waxaan rabaa inaan idinka raaligeliyo cid kasta oo tabanaysa ama ay ku jirto waxoogaa sidan maadan mudane sidana kuu dhacay intaan raaligelin baan ka bixinaya sababtoo meel kastoo la isugu yimaado wax badan baa bini aadan baa nahay ducf badan baa jira taasna raaliha laga ahaado intaa ka bacdi golahani oo markii hore asaaskiisu ka soo bilowday Nairobi kulankaana uu lahaa midkii lagu gunaanadayay muhiimadiisu waxay ahayd xaaladda waddanka Soomaaliya ay ku jirto iyo sida ay maanta ku socoto inayna ahayn wajigii dowladnimada Soomaaliya asaaska u ahaa waxaa la yidhaahdaa dowladda saddexaad waxay ka soo bilaabatay marka laga tago dowladdii hore ee 60kii ilaa 69kii iyo dowladdii kacaanka wejigan saddexaad ee carta ka soo bilowday waxaad ogtihiin dowladnimada Soomaaliya waxay asal u ahayd ama ilaa waqtigaa lagu soo waday dib u heshiis xalli khilaafaad aduud iyo dowladnimo la ururinayo yaa waxay ahayd bayska dowladnimada maanta halkaan aynu ku soo gaarnay waxaa asal u ah kugusan isqancin isqadarin wada tashi iyo wax dadka ka dhaxeeya oo miiska intii la isugu yimaado wax la isweydiiyo Soomaalidu marka dowladnimada laga tago ka hor xilligan hadda dowladnimada casriga ah qabaa'il bay ahayd way is xukumi jirtay qabaa'il baa la isu xukumi jiray wixii la kala galo ama wixii dadka dhexdooda soo kala gaadha dhaqan baa lagu xallin jiray laakiin dowladnimadu waxay keentay bal in system dawli ah iyo nidaam dowladnimo intaan ka tagno tii miyiga iyo qaabkii dhaqankiia inaynu iyada ku dhaqanno taasaanan maanta ku soo gaadhnay waxaa sababay markaa gogashani ma aha mid Soomaali lagu duminayo ma aha mid dowladnimadii lagu baabi'inayo ma aha mid dowladnimadii Soomaaliya meeshay joogto meel ka xun loo sii wada waxay ahayd war sidani ma noqonayso taladaani dad bay ka dhaxaysaa aan isu nimaadno aan ka tashanno sidani sax maaha waxay dowladnimadu ku socotay wejigeeda inayna ku hadlaayo maanta madaxweyne xasan sheekh isagaa madaxweynaha ahaa waxaa wax badan ka maqan shalay meeshii uu soo maray iyo marxaladihii lagu jiray iyo hadalladiisii iyo wixii shalay markii aan waxyaalaha qaarkood la diidanaa meesha uu taagnaa maanta extreme boqolkiiba 360 buu wareegay umana muuqato waadna ogtihiin waxaa maanta inala fadhiya Sheekh Shariif iyo senator madaxweyne hore Puntland Cabdiraxmaan Faroole ood garanaysaan 2012kii meesha ay gaarayeen iyo hadalladu meelaha uu gaarayay dhinaan dhinintu ilaa markaa dambe laga gaaray dowladdii la soo khatimo kumeelgaarka iyadoo loo gudbo dowladnimada aniga xasan labadoodana banaankan ka joognay markaas maanaan ahayn dadkii dowladda ku dhex jiray ee wax sameynayay in markaa maanta ay noqoto inaan arki weyna shalay wixii la soo maray iyo siday ahayd oo maanta aan qaadanno sidan aan yeelaya anaa kan samaynaya hadday dictatorship wax tarayso Soomaaliya meel hore ka bixin lahayd maanta halkaas waa la soo dhaafay adduunkuna hadda uu ka gudbay barnaamijkaas
sidaa daraaddeed baa waxaa muhiimadda shirkan ay tahay ama natiijada ka soo bixi doontahay inayna Soomaaliya ku jiri karaynin gacan hal qof indhala-aan sidan aan yeelaynaa waan ku soconaynaa ay tahay sidii shalayba la yeelayay sida maanta ayna huraynin in la yeelo talada miiska la saaro waqtiga dhimanna la garanayo waqtiga dhiman ee maanta ka dhiman xilligii doorashadu baarlamaankuna waa la yaqaanaa abril buu dhacayay madaxweynahana waan garanaynaa hawshaasi ayna noqon karin hawl sii socota taana macnaheedu uu yahay dhibaatada ka timaada waa mid qof walba saameynaysa taabanaysa taasaan doonaynaa marka inaan ka hortago oo la caddeeyo inayna suurtagal noqon karaynin waqtiga loogu talagalay waxaana inuu dhaafo timeka loogu talagalay iyo sida loogu talagalay iyo sida saaxiibaday qof waliba siduu shalay ku tagayay si ka bedelan inayna iman karin ilaa markii la bilaabay doorasho toosa waxaa la raadinayay baahay dowladda maanta jirtaay waqti fiican bay bilowday inay tiraa qof iyo cod baan ka shaqaynayna iyo deegaan aan xoreynaynaa laakiin waxaan garanaynaa natiijadii maanta meesha ay ku dambeysay intii la hayay ee la qabtay gacantay ka baxday qof iyo codkiina wuxuu ku soo dhammaaday dhul la dumiyo intaasoo milyan oo ku baxda gobolka banaadir baan dhisaynaa councilo dhisaynaa sidanaan yeelaynaa doorashaan qabanaynaa intaasoo dhan waxay noqotay maraaxisha iyo stebiska la qaadayo ee la garanayo natiijo la-aanteedu meeshay ku dhammaanayso mid waan rabaa si shaksiyan aan idinku sheego soomaalidu inay iscafido oo qof waliba qof kale wuxuu u qabo uu iscafiyo waa shay min addiina maanta xasan waa madaxweynaha qaranka mandatekiisiibuu ku fadhiyaa waxaa laga yaabaa jubbaland inay tahay cidda culayska ugu badan ka tirsanaysa laakiin wax shaksiyan aniga isaga isu qabniyo waxaan u qabo midna ma jirto oo caafis buuna iga yahay waxbana uma qabo waxaan ka tirsanayaana ma jirto ama waxa aan isku soo diidnay aan kusoo kala tagnay waxay ahayd maxaan doorasho uga baahannahay haddaan ku heshiina waynu iska joogi karnaa intaynu doonno aan iska joogno doorasho uma baahnin sharcigaani wuu jiifaa sidan aan yeelno waa wax shalayna aanan aqbalaynin maantana aan la aqbali karaynin mas-uuliyadda weliba markaan in kale kusii daro deegaankan hadda jubbaland waa meelaan is leeyahay horta waan yaro gaabinaynaaye dowladnimada soomaaliya o dhan jubbaland baa laga soo dhisi karaa maxay tahay sababtu dee soomaalidii oo dhan baa joogta aan iska joogno ka iigu dhow maanta ima aqbalayo aan iska joogno oo sida madaxweyne xasan uu ku talinayeen isku diidnay ahayd maxaan dowlad uga baahanay shilimana waan qaybsan karaa waana joogi karaa sidaa aan yeelno waxaan isku diidnay been ma raba markaa taa inaan kusii dheeraado waxaan rajaynayaa iyadoo la niyadsan yahay shirkaani macnihiisu inuu yahay maanta Soomaaliya god bay ku dhacaysaa samata bixin bay u baahan tahay xeerarkii oo dhan baa laga tegey sharciyadii baa laga tegey dhaqankii Soomaalinimada laga tegey maanta dayaca iyo burburka magaaladii Muqdisho ka jira iyo deegaanadii waad arkaysaa waxa maanta dhacay shabaab waxay noqdeen maanta inay awoodda ugu badan waddanka oo dhan ay ku yeeshaan waxay halis u tahay in magaalooyinka waaweyn waxay rabaan maanta ay ka sameeyaan oo sida rabaan ay yeelaan intaasoo dhani waa ducfiga iyo nooca dowladnimadu sida ay ku socoto sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan ilaalo madaxweyne xasanow waxaad shalay diidaneed maanta cid kaa aqbali mayso dowladnimaduna wejigaa ma yeelanayso shirkaanna waxaad ogaataa waxaa ka soo bixi doonaa inay tahay gogol Soomaaliyeed ay ku tashanayso haddii madaxweynuhu uu si aada u fakarayo wuu iman lahaa intuu yimaado odhan lahaa wadhamaya meesha taladii waan dhigay xageen talada haddaan idinla bilaabaya laakiin hadday noqon weyday timeka u dhimanna inuu yaqaano waana la garan karaa maanta waqtiga dhiman jubbaland xildhibaanaha ka soo baxaya senataro puntland bay ka soo baxaan hirshabeelle galmudug intaba koonfur galbeed xildhibaanadaasi haddii weji lagu heshiiye la waayo oo dowladnimadu ay qaab yeelan weydo wax diidayaa ma jiro berri inaan shalayba waxaan u malaynayaa doorashadii hadda ugu dambeysay sanadka wuxuu ka bilowday kursiga ugu horreeya waxaa laga doortay jubbaland baa soo mahay
inaan bilowno maxaa diidayo konton iyo kowdii sanadkii kuwii kaleba aan bilowno guddiyadii la sameeyo sababta guri mugdi madow ma sii geli karo sharciga oo dhan kuma sii tuban karo xaaladda waddankuna siday ku jirta kuma jiri karayso in la iska joogo iyo in sidaa la yeelana dee Soomaaliya meeshay gaadhsay baan garanayna marka waxaan rajaynayaa kolley maanta ra'yi badan baa soo la jeedin doonaa madaxduna way urursan doontaa dhammaan dadka Soomaaliyeedna waan ugu baaqaynaa barnaamijka aan ka shaqaynaynay Soomaali inaan duminno ma inaan Soomaali dhisno haddii sida ay maanta ku socoto ay ku sii socotana waxaan rabaa inaan ka digo oo khalkhalka siyaasiga nooca uu sii dhaco amnigu inuu saameyn ku yeelan doono dhammaan gobolka dowladaha ku yaala oo Geeska Afrika cid walba meesha uu tagi doonta beesha caalamkuna aad bay u daraynaysaa u fiirinaysaa go'aanka shirka ugu dambeeyay iyo baaqa iyo waxa la soo jeedinaya go'aamada waxay ka soo bixi doonaan xilliga xidhitaanka laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo aan ugana mahad celiyo inta ka soo qayb gashayba ujeedadu inay tahay shirkan in Soomaali lagu badbaadiyo golahaana uu ka shaqaynayo sidii Soomaali mustaqbalkeeda gacanta loogu qaban lahaa loo badbaadin lahaa doorashadiisa ay u dhici lahayd wax la isku waafaqsan yahay ee aan qaban karno iyo waqtiga inoo haray in laga shaqeeyo aad iyo aad